golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadaha iyo baarlamaanka dawladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada reerka siyaasiyiinta dhammaan mas'uuliyiinta sharafta badan ee ka soo qayb gashay munaasabadan mudanayaal iyo marweyn waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib madaxweyne mudanayaal iyo marweyn waxaan ka mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed isugu timid madashaan sida ay noogu sharfeen inaan dhigno gogoshaan oo aan ku martigelino gurigoodii iyo deegaankoodii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan ka cudur daaranaynaa haddii waxyaabaha qaar ama meelaha qaar aan ka gaabinay oo dadaalkii aan bixinay ay gaabis meelaha qaar ka soo galay waa ka mahadnaqaa runtii annagoo mahadcelintii taas ku sii raacinayna haddana waa ka cudur daaranaynaa wixii meelaha qaar ka jira waxaan leenahay sida aad ugu dulqaadateen ugu samarteen ka talinta iyo maslaxada ummadda Soomaaliyeed madaxda sharafta leh aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinaynaa uga maqnaydeen xafiisyadiinii iyo meelihii gaarka idinaha gurigiinni kamaydaan maqnayn xafiisyadii iyo waxaad ka maqnaydeen meelihii gaarka idinaha sharaf bay u tahay reer galmudug inaad ka aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gobasha Soomaaliyeed dhigaan inaad ka aqbasheen sharaf gaar ay u tahay meel walba ay joogaan waa ogyihiin madaxweyne mudanayaal iyo marweyn shirkan amniyaddii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda Soomaaliyeed ka sugeysay way ka soo baxday waana hortiina laga aqriyay iyadoo lagu cabiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo waxaan ku qanacsanahay inay madaxdu fakartay dadaashay la isxilqaamay laga soo baxay mas'uuliyaddii iyo waajibaadkii ummadda Soomaaliyeed ka sugeysay intii talka geysatay intii tilmaam fiican ka geysatay intii dadaal ku beerisana oo mahadcelinayna marnaba inaan shirka wax kale oo badan ka iraahdo waxaan aaminsanahay mirihii laga sugayay iyo waqtigii la joogay iyo xaaladii kala guurka ee dalku uu galayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habbooneed in la isku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaana aan ka rajaynayno inay ka sii socoto ayadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno dadka reer galmudug waa uga mahadcelinayaa dadaalkii aan runtii loo kala harin ee ay madaxdii qaranka dhammaan mas'uuliyiintii Soomaaliyeed ee u timid shirka muhiimka ah ay ku soo dhaweeyeen ay ku soo martigeliyeen ay isku xilqaameen aad iyo aad baan reer galmudug meel ay joogaan uga mahadcelinayaa waa mahadsantihiin reer galmudug runtii waxay muujiseen niyad sami iyo dadaal laydinku yaqaanay laydinka sugayey laydinkaga fadhiyey marka mahad ballaaran baan reer galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda si gaar ah ugu mahadcelinayaa sida isu xilqaameen sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga magaca dowladda galmudug iyo kan shacabweynaha galmudug si farxad leh u soo dhaweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb 15 Agost
madaxweyne mudanayaal iyo marweyn gogoshu waa sideedii in la sii joogaan ku faraxsannahay in la yimaadaan ku faraxsannahay sidii baan ka sii dadaal badannahay waxbaan ku sii daraynaa waxaan leenahay inta joogtana ha teginina inta dhibanna ku soo biira insha allah runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaafnay ama meelihii aan diyaargarowgu waqtiga gaaban ugu galay 15 beri baan haysanaa annagoo 2 maalin haysanaana marti gelinay shirkaan wadatashiga ee miraha dhaxalgalka ay ka soo baxeen marka reer galmudug iyo muddo haysta oo 15 gaartay intaan sheegnay wax ku darmayne waa la imaanaynaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad madaxda qaranka madaxda sharafta leh dhammaanteen waxaan ka mahadcelinaynaa sida mar labaad iyo mar saddexaadba nala kugu sharfay gobashaan nala uga aqbalay waxay noo tahay sharaf waxaan u qaadanaynaa in si gaara naloo tixgeliyey waxaan u qaadanaynaa in nala siiyey sharaftii aan mudnayn iyo tixgelin runtii nala kugu darayba waxaan leenahay soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada gobashiina ku soo dhowaada meeshiina ku sii jooga aniga haddaan shirka meela ka iraahdo waxa weeye nin odagii gobashaan ahay oo ima fura shirka waxay ka soo baxay waa la soo dhigay war kaloo iga furane ma jiro oon bogaadin iyo farxad aan madanahay reer galmudug inaan ku soo dhoweyno gobasha Soomaaliyeed aan ahayn waxaan leenahay mar labaad inta joogtaayna waa sii joogi kartaa waqtigana waa lagu soo dhammaystirmi karaa culays iyo midna naguma ahan reer galmudug waxaan leeyahay meelaad joogtaan waa mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan gobashii Soomaaliyeed aan ku laalaabanno nala ka aqbalo nala ku tixgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh